bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Ingiriiska iyo nawaaxigiisa waxaa lagu wargelinayaa inuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu ku soo wajahan yahay dalkan Ingiriiska gaar ahaan magaalada London. Jaariyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Ingiriiska ayaa qaban qaabisay xaflad heer sare ah oo ay ku soo dhaweynayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo wafuudda la socota. xafladda ayaa waxay ka dhici doontaa hoolka Central Hall Westminster ee ku yaala magaalada London. dhanka kale ayaa waxaa lacag loogu aruurin doonaa abaaraha ka jira dalka Soomaaliya, lacagtaas oo hoolka lagu soo gali doono oo qaybaheeduna uu noqon doono 20 pound. 20kaas baan laga qaadi doono dadka soo galaya hoolka waxaa loo dirin doonaa dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay ku saameeyeen dalka Soomaaliya ee guddiga abaaraha ayaana lagu hagaajin doonaa. hadduu Ilaahay idmo waxaa laga codsanayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Ingiriiska iyo nawaaxigiisa ee awooda inay ka soo qayb galaan munaasabadda lagu soo dhaweynayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay waqtiga dhowri doonaan hoolka oo ku eg xilliga loogu talagalay. dhanka kalena security-ga oo aad u sareeya ayaa waxaa dhici doonta inay dadku haddii ay dhaafaan xilliga loogu talagalay inay soo galaan aysan dib u soo geli karin hoolka. albaabada hoolkana la xiri doono xilliga loogu talagalay ee ku qoran tigidhada la dhiibayo. tigidhka ayaa waxaad ka goosan kartaan website-ka hoos ku qoran oo aad ka tixraacaysaan falaarta idin muujinaysa halka aad lacagta ku dhiibaysaan ka bacdina aad ka helaysaan tigidhkiina aad irida hoolka ku soo gali doontaan. hoolka adreeskiisana waxaad ka heli kartaan shaashada hortiina ka muuqata oo ku qoran yahay adreeska hoolka lagu qaban doono munaasabadda lagu soo dhaweynayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. ka soo qaybgalkiinu waa muhiim.